السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dadku isku mid ma aha. dadka qaar baa markuu xanuun ku dhaco ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahad celiya oo dhaha wallahi arrintani waa dambi dhaaf, ilaahayna wuu jecel yahay istighfaar iyo towbad, inuu ilaahay ka towbad aqbalaya fahmo oo ilaahay qurbaan iyo taqarrub iyo zulfa ilaahay wala subxaanahu wa tacaala. dadka qaarna waxay yiraahdaan xanuunkan muxuu igu dhacayaa laytani oo hin iyo mashaakil iyo wana ku sabrin wuxuu ilaahay qadar subxaanahu wa tacaala. وكنا واسبتال ويل بلو هيا قل ويا قل كأسجع ويل كان وحى كل على يعني عذر على شو كل كنسر أو حنون كيس أن لوت القادم كريم ساعد وبانيا إن أنت سوكين يحنون ببي الله سيو لكن إن كمرك الله سوق لو وحى هي وحى ذلك أسوق لو كل هي وحن هرتي إنك قرية إن كفر أحسن هي إله سبحانه وتعالى وحي وامتحامي أري كسب بحي وحوير الصبر والحمد qof walba u soo galo wuxuu leeyahay waxa aan ku farxayaa oo aan mataqaanay ku shukrinayaa oo aan hortina ka qirayaa inuu ilaahay waxa uu ii qadaray inuu aan raadi ku ahay oo ilaahay maqadiisa aan ka sarreyn buu leeyahay. markaas kalkaalisooyinka iyo dhakhtarka kulliba wada jecel yihiin markuu badhanka saa u taabtaba markaaba lagu soo cararaya markuu dhaho wax shay u baahdan waa loo keenaya maxaa yeelay waa qof ku sabarsan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku umarsiiyay. maalmo kadib ayaa isla qurfad iyo qolkii lagu hayay nin kale la keenay at the same time xanuunkii ninkii hore ayaa xanuun lamid isna uu hayo oo calooshna uu kansarka ka dhaco oo barartay oo xanuunkii xanuun lamid uu hayo laakiin ninka dambe la keenay saacad walba iyo daqiiqad walba uu naclatamaya qofkii u soo galay indhaha dhufka ka tufaya wuu cabaadaya heer waxa la gaaray xataa markuu badhan ka taabto kalkaalisooyinku aysan u tagin maxaa yeelay dhaqan xumadiisa iyo cabaadkiisa iyo waxa ka soo yeeraya. dadku waa labadaas dadna waxay ku sabraan ilaah subxaanahu wa ta'aala wax walba xaqiis kaga yimaada waxayna aaminsan yihiin aayadii ahayd ahasiba alladina yani ma waxay u maleynayaan yaqulu ahasiba alladina yaqulu amanna يعني حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا dadku waxay u maleynayaan in looga tagay kaliya ilaah ilaahay barrumaynay wahum la yuftanun ayagoon la fitnayn walaqad fatanna alladhina min qablihim xaqiiqi waanu فتنيني وانو امتحاني كبي إذنك هريي فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين هل كسؤال هنا كأجاذي كبا إله سبحانه وتعالى سيدنا أبو أمين وحرا يقوى بين على ياشاء مركز إله وكامتحان معي امتحانك إله سبحانه وتعالى كل وأمين بارك الله فيك جزاك الله خير جزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.